marka hore qof walba mansabka iyo magacu meesha ku joogan ku salaamaya waalidiinta qiimaha badan ardayda sharafta badan ee walaalahayga iyo maamooyinkayga qiimaha badan salaan kadib oo ku faraxsanahay inaan kala soo qayb galo xafladaasi quruxda badan ee loo qabanayo ardayda Madjay xaqiiqatan waxani waa process wax mar hore soo bilowday waaye waa loo soo dhabar adeegay waa loo soo dulqaatay maxaa yeelay shaqadani waxay u baahan tahay dad sii wada إن شاء الله تعالى دتك هذا الشقة وذن وكمدنا هاي دتك إن شاء الله تعالى مستقبل كرقي مصر جالسين دونا كمن قدنا ولا ليال أقوانتا سو جيدا بدل ككل عاي حر هذا سردي هرسيدي أهايان أخوان تودو سيدي هاد هب بسموت كذو سيدو أها أخلاق تودو سيدي هاد أنت بو إسبدلين وأرضي هم الله وتاجن إنه وحبرتو نفتيسي هرمريو بحاجة لقفك مركي وحلا برا أما لقدسو أخوان تيو تعليم تي أخلاق ذا وحقرن دونا حق والد كيس كلية حق ولاله كليه يصيد الشلل لو صقر بخبتي بحاجة لخوف كاس هدي تعليم تلاقى دسو وحقردنا بيزيكلي سجنا إنه سمايو أسحان كي أبالك لو صقلي الدون كان خوف كمرك لقى دسو وحبرشة وحيابها مهم كوا أو نفتي سيو بهانتا أيوم مركز قبضنا أرضي داس وحاول ترجين دونا قول يا عمري ديري بحاجة لي سنة هان تود ويس بدلين عافمات كود سيدوكر ومتقادو في عن وحبرشة ودنا ومتقادو سريسو مركز وان رجينيا basically process ka waxbarashada hadda ku jiraan inay ka sii hormaraan sidoo kale walaalayaal anagoo idil waxa ka soo wada mid aheen agoontaasi gacanta laga soo wada qabtay alxamdulillah dugsi sare la soo wada dhameeyay lama dayicin sida hore u sheegayba dad la gacan qabtay dadkoodii u taagnaa hormar la gaarsiiyay aan facodba u liidanin waxa yeelay anaga dadka waxbarashada la soo dhameeyay qaarkood waxbarashadii weyba ka hareenba dugsi sare markay dhameeyeen ayagoo waalidiintooda nool ay aan agoon ahayn bay waxbarashadii ka hareen iskuul qaarkood jaamacadda nasiib aysan u yeelanin laakiin alxamdulillah anagoo agoona aabaheeni naga hormaray adeero walaalo dad qiimo badan baana garab istaagay hadda waxaan maraynaa heerkii ugu dambeeyay gabagabada jaamacadda tusaale anaa jaamacadda muqdisho ka bixir waa sanadkii ugu dambeeya maraya macnaa hamiga iyo ambitionka ama horumarka aan markaas ku fikirayo waa horumar aad u sareeyo ani isma soo gaarsiinay dad qiimo badan isoo dhafray isoo dhabar adeegay baan ku soo gaaray marka waxaan leeyahay jazaakumullahu khayran abaalkiina ma la gudi kara xaqiiqatan maxaa yeelay qofka shalay waxaad cunto waxaad cabto hooy waxbarasheed intaba ka caabiyay waa wax aad u qiimo badan aan markaas qiyaas lahayn marka waa dareen ahaan waa dareemi karaa dadkaasi abaalkay leeyihiin macnaa waxay ku tusinaysaa midaasi mid lamida dadkaas waxay sameeyeen inaan sameeyno shakhsiyadeeda ama nafsadeeda oo taaganahay horumarinta dhalinyaradaasi ee agoonta ah inaan hormariyo haddii ahaan leed waxbarasho dhaqaalo intaba hadduu ilaahay markaas yiraahdana waa ka mid noqon doonaa dadkaasi gacanta ku qabta marka waa ku faraxsanahay dad badan baa iga dambeyn doona hadal jeedinta waana ii sharaf